wanaagsan intii nagala socoto barta Facebooka oo aan live ka nahay iyo YouTube-ga sidoo kalena dadka qaarkii waxay naga daawan karaan saacadaas website-ka wagacusub.com waxa caawa igu martii halkan oo ila joogo ninaan saaxiibo nahay siyaasi caan ah xildhibaan qaran Daahir Amiin Jeesow oo leeyahay soo dhaw magaalada Bareeda ee dalka Holland sadaqtiin Daahir Amiin Jeesow ina caawa isla yeeshay xiisa gaar ah leedahay inkastoo Soomaalida markay waraysiga qaadayaan qaarkood ay ku horumaraan inay ka sheekeeyaan arrimo kale waxaan ku horumarayaa maalintii uu ka wardanbeysay xildhibaanada oo fadhiyo kulanka baarlamaanka oo socdo ayaa ka baxday sababtu maxay ahayd bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah awalan waan kaaga mahadcelinayaa kulankeena maanta waa ku faraxsanahay in maanta stuudiyo waaga cusub aan fadhiyo in badan ayaa ka daawanayni oo ahay banaanada daahir aad baad u mahadsan tahay ayaga iyo stuudiyahaaga iyo mediahaagaba iyo tiimkaagaba intaa kadib haddaan usoo laabto su-aashii aad i weydiisay su-aasha aad i weydiisay waxaan filaa waa fadhigii ugu dambeeyay ee baarlamaanka ee lagu ansixinayay xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre runtii inta aniga aan xildhibaanka ahaa dhowr xukuumadood laga soo bilaabo Sheekh Shariif oo hadda madaxweynaha ra-iisul wasaare uu ka ahaa Cabdiweli Gaas muxuu ahaa tii ka dambeysay madaxweyne Xasan Sheekh intii ra-iisul wasaaraha soo martay iyadoo la ansixinayo ayaan goobjoog u ahaan jiray markii la akhrinayo muxuu ahaa la ansixinayo xukuumad waxay leedahay sharciyad loo maro ayay leedahay sharciyada loo maro waxaa weeye ugu muhiimsan kow in barnaamijka xukuumadda la akhriyo dastuurka wuxuu dhigayaa in 48 saacadood ay xildhibaanada soo akhristaan markaa kadibna muxuu ahaay iyadoo lasoo akhristay oo laga bogtay laisku soo laabto fadhiga ku xiga ee baarlamaanka uu fadhiisa markaa codkii kalsoonida ahaa loo qaado ciddii su-aal muxuu ahaa hadal jeedin lene ay hadalka jeediso oo muxuu ahaay wixii lagu ansixinayo haddii xukuumadda barnaamijkeeda iyo golaha wasiirada oo laska rabo shuruudo fara badan oo dastuuri ah sida muxuu ahaay inuu qofka jaamici yahay inuu yahay noocaas inuu yahay nooc inuu muxuu ahaay shaqadan shaqa asaga lagu qasbay ay tahay iyo in shaqa asaga uu soo raadsaday ay tahay in su-aal laga weydiiyo wasiirkii oo la dhaliilsan yahay waxaasoo dhan ayaa ay ahayd systemka la maray tan laakiin waxay ahayd waa ku keeni maantaan ku keeni maantana ansixinaysaa barnaamijka guddoonka baarlamaanka arrintaas ma laga xisaabtami karin barnaamijka xukuumadda haddii maanta lagu soo daro for example ciidanka dalka waan kala dirayna hadii lagu soo daro ee aada ansixiso adadoona soo akrisan ciidanka waa la kala diraa ileen baarlamaana ansixiyey baarlamaana loo maray daahir calisow shaqadaha laga cayriyo hadday dhexda ugu jirto barnaamijka xukuumadda ee la akhrinayo ay dhexda ugu jirto muxuu ahaay mediaha daahir calisow hala xiro hadday ku jirto oo ay ku jirto mediayaalka oo dhan waa xiraynaa dalka media ma yeelanayo haddii qoraalada ay noocaas ka mid yihiin ee aada ansixiso waxa waye sida loo ansixiyay waxay waa la fulina ma dhihi kartid waxaan hadhowta haddii ficilka la sameeyo ma dhihi kartid maxaa loo yahay markii adaa ansixiyay baarlamaanka ansixiyay marka waxaasoo dhan ayaan aan tuhumahay mar haddii aan nahay xildhibaan xaq baan u leeyahay inaan iraahdo waxaan waa qaldiyi waxaan aan soo akrisano waa dhowr iyo 30 ilaa 40 bog waa buug dhan aan soo ansixin aan soo akrino kadibna fadhiga ku xiga aragtidayna aan ka dhiibin aan ka doodno kadibna hala ansixiyo inta aan ku doodaa intaas ay guddoonka baarlamaanka iyo tiim kale oo aad haari u ahay oo degdegsanayna waxay rabeen in markaas la ansixiyo marka aniga waxaan ku yiri waxaan qalad ku jira mar haddii qalad ay ku jiraan iyo eebsan mayso xildhibaankii waxaan ahaanahay oo banaanka ka jooga arrinta saas ugu baxday marka guddoonka baarlamaanka markuu qalad noocaas galo oo wax dhaba ka dhiga qorqabad muusu jirin
xeer hoosaad ama qodob qabanayo sharci oo dhahayo qalad galay guddoonka baarlamaanka waa wallahi hadda fiiri waxaa jira xeer hoosaadkan dii la diido oo la jibiyo haddii dastuuraa jira dastuurka la jibiyo waxaa weeye qofkii jibiyey unbaa dembigeeda yeelanaya marka goortii lagula xisaabtamaba dastuurka qodobo badana laga yaabaa in madax badan ay soo jibisay muxuu ahay xeer hoosaadka in la jibiyey ama xildhibaanba uu jibiyey ama guddoonka ha jibiyo guddoonka waa xildhibaan aan anaga dooranay oo aan dhahnay noo guddoomay wax kaloo dheeri oo hadda oo dadkii uu dheeryahay male laakiin leadershipnimadiisa ayay tahay in waxa sharciga ah muxuu ahay for example waxaad arkaysa anoo dhahayo waxaan sharci ma aha xeer hoosaadka iyo dastuurka aan ku dhaqano dhahayo oo dastuurka iyo xeer hoosaadka labada gacmood ku hayo oo dhahayo guddoomiye aan u hogaansana kan oo haddee isagana waxaa laga yaabaa barashar kale ee xildhibaano kale inay saaraayeen marka adiga arrintaas saasa u sabab ahayd muxuu ahay welina hadda wax layska waayahay waxaan ka bilaabay halkaas waxaa hubaala xukuumaddii ra-iisul wasaare khayre xukuumadda keliya ee iyada oo aanan muxuu ahay barnaamijkii xukuumaddeeda ayadoon la akrin muxuu ahaay oo aan xildhibaanada ay ka boganin la ansixiyo waayo inta aan usoo jooga xukuumada lalisaay marka waxyaabo badan ay ugu duwan tahay waayahay halkaasaan kasoo boodaya waxaan imaanayaa muqdisho maanta waxaa ka socda hubka dhigis ay ka socoto muqdisho baarlamaanku ma ansixin sharciyan hubka ma laga dhigi karaa dadka ama hubka dhigis ma la samayn karaa iyadoon baarlamaanku waa iska soo ansixin waad mahadsan tahay horta hubka inuu dhibaato dalkeena ku yahay laa shakila qof walba oo muwaadin oo soomaaliyeed waa ogyahay hubka waa khatarta ugu weyn ee dowlad la-aantana dhigay 27 sano laakiin haddana waxay u baahan tahay dalka oo dhan in si siman hubka loogu wada dhigo qaabka looga dhigayo in qaar baarlamaanka uu soo dejiyo ay noqoto aada iyo aad bay u qurux badan tahay waayo dowlad goboleedyada dalka ka jira hadda hubkii xamar yeeli dowlad goboleedyadii ay asal ahaan dadka ay kasoo jeedeen ay la aadeen kii galmudug la aado kii muxuu la aado hiirshabeelle kii koonfur galbeed la aado meesha waxaa kugu daliila in aanba hadda xamar hubkii yeeli ay dowlad goboleedyada labada dhinac ka fadhiya magaalada caasimada in ay la wada aadeen haddii laakiin dowlad goboleed ha noqoto muxuu ahay caasimada ha noqoto sharci mideynaayo oo hubka dhigista lagu sameynayo in la sameeyo aada bay qurux badneed haddii aanan la sameynin hubka hadda uma malaynayo in qaabka hadda isku socdo hubka dhigis lagu sameyn karo for example sharcigaas oo kale wuxuu tilmaamaya uu qeexaya dowlad goboleedyada booliiskooda ama daraawiishtooda hubka ay qaadan karaan nooci ugu weyn in la caddeeyo haddii dowladdii federaalka ahaa ciidankeedii militariga iyo dowlad goboleedyadii ay saam noqdaan hadda meeshaan waxay noqonaysaa laba rajiyo qooqan oo geel laiskula dayay sida aad arkaysid dowlad goboleeda iskale muxuu ahaa kalsoonida kala noqonay dowladda federaalka dowladda dhexe kala noqonay oo federaalka hadda waxa weeye waa la isdhaadhaajis ayay noqonaysaa marka taasna waxay sabab u noqonaysaa dowladnimadeeni inay dib usii dhacdo in hanaqaadkii iyo tilaabadii la rabay inaan hore loo socon jugjug meesheeda joog aan ku jirno marka aniga waxaan ku talin lahaa in caasimada kaligeed aan lagu koobin caasimada baarlamaanka idinkoon ansixinina ma la samayn karaa hubka dhigis maya baarlamaanka inuu ansixiyo waa in la marsiiyo waa baarlamaanka waayahay hal rag badan oo saraakiila ayaa hubka dhigis lagu sameeyey xalay waxaa ugu dambeeyey hogaankii caafimaadka ee ciidanka militariga maxamed cilmi oo lagu dira siliga amerikaanka shalay markuu laga dhigay kadib yaa loo qabsanaya qofkaas wallaahi hadda aniga waqtigan hadda intaan kula jooga baarlamaankana fasaxu ku jiraa laakiin qofkiisa iskale kiis hadduu dhaco qofkiisa ayaa iskale aniga allah u naxariisto wasiir cabaas geeridiisii kulley waad dhegaysateena laga yaabaa waxaan sabab ugu dhigay oo aan is eri waa dayaceen xukuumadda federaalka wasiir qiimo badan dhalinyaraa wax bartay intaasoo sano wax usoo baranaya dalka
wasaarad quality leh wasiirka oo wata baabuur yar aan staff wadanin oo waxbaba wadanin ee baabuurta yartahay weliba looga baqo baabuurta isqarxisa looga baqo wata weliba ku isqarxaya looga baqaya looga baqa ayaa wasiir dhan lagu aaminay waxay ahayd wasiirka inay baabuurkiisa staffkiisa uu hor socdo baabuurkiisa kalena ama ha u yaraado ama ha u weyneedo uu daba socdo oo waxaan wadna wasiirka waaye la leeyahay haddii ayna taas dhicin wasiiro badan ayaa khatar ku sugan wasiirkaasna khatarteeda iyo muxuu ahay mas-uuliyadda dayacaada anigu waxaan u saarinayaa xukuumadda federaalka tanna hadda saraakiisha hadda la diliyo sheegaysidna haddii ama hub laga dhigay ama muxuu ahay lagu sameeyey wax abuse kale lagu sameeyey dee qaladkeeda waxaa iska yeelinaysa xukuumadda ay yeelinaysa waa yahay xildhibaano ayaa waxay ku shireen Nairobi ama ha isku arkaano kulan is arag ha ahaadaano halka isbahaysi ama madal looga dhawaaqay guuxa magaalada ku jira waxa leeyahay marka baarlamaanka dib loo furo ra'iisul wasaaraha laga taqalusaya marka baarlamaanka dib loo furo may gudoomiyaha baarlamaanka loo socdaa marka baarlamaanka dib loo furo may madaxweynaha laftiisa lagu socdaa maxaa ogta iyo xildhibaanada uma malaynayo xildhibaano 100 dhan inay Nairobi ku kulmeen hadalka hadal la buubuunay hadal muxuu ahay saxaafadda loo adeegsaday oo xildhibaanada Soomaaliyeed lagu dacaydeynayo ay aniga aan u arkaa sababtoo ah waxaan ogahay waxa weeye xildhibaanada inta badan vacancy ku hadda waxay ku jiraan fasax ku jiraan qaar goboladii dalka ay ka soo jeedeen ay aadeen oo report ka soo qorayaan qaar waxay soo aadeen banaanada dhowr xildhibaano taransada inay meeshaas ku kulmeen waa laga yaabaa oo ay qaabkii dowladnimadu ama isla xisaabtanka uu qurxinaan lahaa ay mabda ahaan ka midoobeen waa maqlahay muxuu ahay xildhibaan xidig wasiir ku-xigeenkii wasiir dowlihii hore arrimaha gudaha oo dhahayo muxuu ahay dhowr nin anagoo ah waxaan la garanay in aan kudlad sameyno kudladana muxuu ahay hor socdaa la yiraahdaa waxaan rajaynaynaa in xildhibaano badan oo kale ay nagu soo biiraan inaga mid noqon laakiin qolada afto ma dhacaya afto ma dhacaya exactly motion ma jira ma anigu motion ma ogso ana motion ma ogso okay waxaa jira diyaar garow qaabkii xisbiye loo sameyn lahaa diyaar garow markii anaga waxaa nagala saxiixay 2 sano gudahooda xildhibaankii aan ku biirin xisbi siyaasadeed in kursigiisa uu doorasho aadayo jaa hadda 6 bilood sidaa ku baxday waxaan rajaynayaa 18 bilood oo dhiman in dalka xisbiye uu yeesho xisbiye siyaasadeed oo diiwaangelintooda haddaba way fureen guddigii muxuu ahay doorashooyinka xafiiskii diiwaangelinta waa fureen xisbiyadaas lagu kala biira hadda xisbigii majority xildhibaanada hadda jooga ruuxooda ku kala biira dad muwaadiniin ah oo siyaasiyiin madax banaana kusoo biiraya xisbiyada markaa aragtida hadda nooca oo halka xisbi ah hadda hal xisbi aan nahay xukuumadda ra'iisul wasaare muxuu ahay madaxweynuhu marka majority party sameeyaan majority party la sameeyo haddii majority party ay xukuumadda madaxweynuhu mid kale soo ku soo baxo awoodu yalla muxuu yahay aragti kale yeelanay taas aragti kale xisbiga tusaalahan majority party soo baxay xisbi oo cod badan haysa soo baxo ay 150 xildhibaan ku midaysan yihiin in la dhageystay rashaafal lagu sameyn karaa xukuumadda waxaa hubaal ah haddii xisbi majority uu yimaado in xukuumadda ay dhageysato oo madaxweynaha uu dhageysto oo baarlamaanka ay dhageystaan waayo waxay sameyn karaan regime jija ay sameyn karaan inay wax bedelaan ay sameyn karaan marka waa majority marka laakiin waa lagu qasban yahay in dalkeena uu yeesho xisbiye siyaasadeed oo muxuu ahay mideeya ummadda Soomaaliyeed qaabkii qabiilka ay ugu bixin waayo su'aal ku weydiinaya adiga aad bisqarishida waxa lagu tilmaamay leeyahay isbedel doonka kamid ahaa xilligii doorashada 8 February adiga farmaajo waliba kulanteen ma is aragteen siyaasadiisa ma kala sheekaysatay talo ma siisay madaxweynuhu waa madaxweynihii muxuu ahaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ma kulantay markay noqoto waa kulaniyas laakiin siyaasad ahaan sidii loo wada shaqeyn lahaa kama wada aan hadlay
waya ra-iisul wasaaraha ma aragteen sidoo kale ra-isul wasaaraha waa ra-isul wasaarihii qaranka muxuu ahaa waa fulintii ninkii madaxda u ahaa waan is aragniyees xilligii la ansixinayay waa goobjoogaan ahayn xilligii golihiisa wasiirada la ansixinayay goobjoogaan ahay waana kulannay laakiin hadda eygana hadda waa waqtigoodii waa dhalaan oo hadda weli waaya waqtigii waa la dhisay waa dhow yahay oo muddo 3 bilood iyo 4 bilood ah ayay kala marayaan marka laakiin qaabkii loo wada shaqayn lahaa ilaa iyo hadda lagama wada hadlin waayahay xildhibaanaad tihiin rag badan ay gabdho iyo rag xildhibaano aad soo wada ahaydeen oo cabdullaahi jaamac uu kamid yahay oo guuro uu kamid yahay geeridiisa maanta ku beegan tahay aan wada hadlayno ay ku beegan taariikhda markuu dhimanayeen saada cali aa jirtay haydaa jiray xildhibaano fara badan oo saaxiibo aad ahaydeen ayaa dhintay xildhibaanka isagoo xildhibaan qarana markuu dhinto ma halkaasuu magaciisa ku ekaanayaa mise xaq buu leeyahay dowladda ku leeyihiin caruurtooda ubadkooda qoyskooda kafaalaqaaday leeyihiin daahiro waad mahadsan tahay inaa lilahi waa inaa lilahi raajicuun dadka dhintay ee labadaa nin iyo gabadha ay kamidka ahaayeen aan magacooda sheegtay 18 xildhibaanaa naga dhimatay annaga xilligaas baarlamaankii waa 9aad 18 xildhibaanaa ka dhimatay 18 koodaba wallaahi ragga dhaha ayay ahaayeen ragga dhaha markaan aan leeyahay xildhibaanada la tiriyo oo farakutiriska ee aan dhihi karo xildhibaanadaas waa xildhibaanada ka muuqda baarlamaanka ayay ahaayeen labada nin guuri iyo allah u naxariistay cabdullaahi laba nin oo aada u qiimo badan ay ahaayeen waxaan umalaynaa arbacadii dood baxaysay aan iskula jirnay markay dhimanayeen arbacadii dood baxday ayaan iskula jirnay oo baarlamaanka oo aan isku mabda ka ahayn anigii waxay ahayd arrimaha meeqaam gaarka ee caasimadda ayay iyo sida muxuu ahay caasimadda ay ugu qaybgeli karto aqalka sare ee markaa la dhisay marka laba nin oo aada u qiimo badan ay ahayd xasuus dheerna igu leh xildhibaanadaas haddee waxaa la rabaa qaranka soomaaliyeed inay tusaale waaba usoo qaataan oo meel kastoo la tago waa la sheegay in raggaas iyo hablahaas geeriyooday ee qaranka magaciisa u geeriyooday inay xusaan awlaadoodii iyo muxuu ahaay ahalkii ay kasoo jeedeen si ay u qalbi qabowsadaan in wadooyin lagu magacaabo in muxuu ahaay taalooyin lagu sheego in library lagu magacaabo in jidadka lagu magacaabo waxaasoo dhan insha allahu laakiin waxaan rajaynayaa laakiin hadda baarlamaankiinu waxaad meel dhigteen ma jirto agoonta dadka ay ka tegeen mataqaana xitaa leeyahay beerashooda noloshooda si kafaala qaada maadaama nin qaran ama gabar qaran maya waxaas ma jiraan markee wixii baarlamaanka sidiisaba wuxuu ku yimaadaa waa ogtihiin qabiil wax la yirahdo ku yimaadaa qabiilkana markiiba ninbuu qofku ku keensanayo uu soo buuxsanaya laakiin annaga farseekarin annaga aan samaysanaya jeer lacag annaga aan iska goynaynay oo $100 oo xildhibaan kasta oo geeriyoodo 30,000 oo famiilkiisa la siinay ayaa jirta taas ma la wada maray 18 koodaba waa maray ninkii ay ka maqan tahay hadda uu qaadanayo marka xildhibaan kasta oo geeriyooday qoyskiisa 30,000 aan siinaa oo intaas waa naga bixinaysa xukuumad ma aha waxay naga bixinaysa waa xildhibaanada $100 oo qaaraan oo iska jiraan oo automatic loo jiro way su'aal ku weydiinayaa shacabku isbedel raadinayeen isbedel doonay ahayd dadka inta badan farmaajo la doortay qayr ra'iisul wasaare u magacaabay sidii wax ku bilowdeen ma sidii la rabay ba mise waa ka dar oo dibadhan adoo ka gamba sheekada horta markuu ugu horeyso waxay ahaanaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa naga yaqaan waxaana hubaal ah in mar walba annaga hamigayna uu yahay in hore loo socdo siday ku bilaabatay waa un sidii hadda waad ogtihiin horta marka ugu horeyso waxaan ummadda soomaaliyeed oo dhanna ay wada og tahay adiga daahir aan ku sheegaya madaxweynaha marka la doorto oo in markii doorashada campaignka uu ku jiro madaxweyneyaalka issharaxo oo Soomaaliya wax balaan ah oo qorshe ah oo u dagsan male markii la doorto oo waqtiga nasiibkaas uu ku helo kadib ayuu wuxuu raadiyaa qorsho
baleenkii wax ku hagi lahaa iyo wax la yidhaahda group iyo qabiil iyo wax noocaasaa la raadiya sida haddaba aad arkaysiin oo tiimaa jare iyo madaxtooyadii muxuu ahay agaasimihii saddexaad ayaa 4 bilood gudahooda ay maroohaysaa taas waxaa kugu daliila in qorshe deganahay oo markiiba agaasimi kii joogayba ha wado kii sii joogay madaxweyne xasan sheekh waayba ha wado in barnaamij degsan oo miisaan leh uusna jir laakiin waxaan ku ammaanayaa madaxda soo martay dalka waxay soo dhacdhacaanba marka ka dambayso way kasoo roonaanayeen marka ka dambayso waa kasoo roonaya idinka ma aqaan sidaad u aragtiin laakiin annaga markaan siyaasadda ku dhex jirno waxaan xasuustaa dowladdii madaxweyne xasan sheekh 2012 ra-iisul wasaare saacida laga dhigay wasiirka muxuu koowaad waxaan ka waaynay haba yaraatee wax hindis sharciyeed ah oo ka yimaad annagana hindis sharciyeedyada aan ansixinayno waxay nooga yimaadeen xukuumadda markaasaa baarlamaanka ay yimaadeen baarlamaanka guddigii ku shaqada lahaa loo geeya guddigii ku shaqada lahaa processka marsiiyo markaa kadib ama la ogolaada ama la diidaa haddii la ogolaado madaxweynaha loo sii dira processka la mara noocaas wax haba yaraatee waxaan waynay waana 10 wasiir wax la dhis waxaan waynay haba yaraatee hindis sharciyeed ka yimaado ما ملايين بأمم ملايين يعني أنا كسوقينه إن ودن كان بربور شرعي دي سدب لورد السو ما أوجي إلا سيدا لسعتي موشن لقى كانوا سجاشني أفر ليرة سجاشني أفر حلي وأنا موشن صحيح مركا كدي بالليرة محارب كينا وكنت موشن أو هندي الشرعية دي محان خبرنا أو إحنا الحكومة ديك السوقين مركا كدي بينو قصوا عليه وحن إلهي أنتيس مرقاتو ولقنا يدك كلام شن شرعي لح شرعي وكيل لحد أو هاي هندي الشرعيات كل ده هي لا درك أرجع لا درك وسوق قبيل نوع وقت كنا قدام هذا شن شرعية أوتوماتيك نوعتين برا وكل شقينا هواي قد جاء أنا أكتر سنة يا أريما قد كلجي أي شن مركا حدي أنا مركا حنت لقى قادين أنا اللي هو حنا اللي نكربه إسكجي جيفان وحوي وقتي ورمانة وقتي أنا قص عضو وين أوجيهين يجي ناس وقت صعد لكن قفك مركو عصبية هاي درول مركاتها أكو عصبتها هاي بابور كا درول كستأها بابور عصبة سوق هذا ما أنت مرشدة هذا هو درول أو هذا درول أيه وحكوني باي لقبس الشدة بابور كاس مركا وحن ليه وحوي أنت كلقب سنة هين ويدب بدنتها مركا وحن رجينا إني لقب سنة هذي لقب سوايا أنا وبارمان أنا وانا قناسي لوير هذا سكبح أنا سكبح أنا مديك رحمك وحيد هذا هيلبك أنك درجاي صبل قبل هيلبك أنك درجينه بيركيس أنك كسنا ذاك كله قرع ضياش وحيد هذا كروي لو ذندو هذا شو أسكو عليه مكون مقطمات دول النمو عن خلاف لهاين oo dadku ku qabanayso ku muuqataa mise waxa leedahay bartii lagu yaqiinay ay ka bilaabato sheekada horta markuu waraysa beerka waxaad ugu maamaado hilib jeceshiin adag hilib jeceshiin beerka weyn hilib badan laga cunaa saas ka wadaa anagu hilibka agtayna waa ka batay geel badan aan leenahay geel bas qaba daahir anigu mar walbaba dhinaca fiican ka eegaya in dawlad fiican oo dhamaystirtaa wixii loo baahnaa dalkana doorasho gaarsiisa ayaan rajaynaya waana ku sheego haddii ay noqon wayso loo jiisi maayo waqti yaa la haystaa waa iska baxay hadday noqon wayso way iska baxay hadday noqotaa waa la shaqaynaynaa laakiin hadda qorsho aan ku dhaliilo ama aan ku iraado waa shaqayn waaye oo aan ku sheega ma hayo waayo muddada ay jireen baaba yar waayahay markii la joogay baarlamaanka ee murashax u ahaa madaxweyne farmaajo wuxuu yiri qofkii qarax soo sheego 100,000 ayaan siinaya haddaan guuleysto wuxuu yiri cidii ay wax ka qaraxdo oo guri laga qarxiyo ama cid ku dhaawacanta cid laga qarxiyo waa loo dhisayaa guriga
haddii dhaawac jira wax laga qabo waa dibadda loo qaadaya wuxuu kaloo yiri dhaliisha ugu weyn ee jirta waxa weeye ayuu yiri madaxdii dalka madaxweynihii ayaa safar ku jira shaqo u lahaa wasiirka arrimaha dibadda ayuu qabanayaa balamin madaxweynaha baarlamaanka horta ka sheegay wixii uu sheegay maanta ma qabayo madaxweynuhu wallahi horta madaxweyne inta badan campaignka waxyaabaha uu ku galo 100% ma qabto laakiin inta la rabo inaad ka qabto waa inta dalka anfacayso in badan oo campaign uu ku galay shacabka la rabaa inay kula xisaabtamaan baarlamaankana waa la rabaa ma baarlamaankana uu kula xisaabtamaa idinka markuu idin sheegayo idin khudbaynayo hadda waraabana haysto wuxuu dhawayaa dawladaydu waa dawladii shacabka uu dhawayaa mo baarlamaankana ma la inkirsan yahay mo anagana waxaan aaminsanahay dawlad xukuumadeena iyo dawladeena inay tahay baarlamaani oo baarlamaankaas wax doorta laakiin madaxweynaha bedelkeeda waad maqlaysaa maalin way dhacdaa markuu tagay dawladii shacabka ra'iisul wasaaraha 100 goor aan ka maqalnay marka laakiin haddana anaga Ismaaciil Umar Geela asaga loo waxay doonaa aniga waxaan leeyahay waxay tahay war aan ka dhursugno aan dhahno ballamkii aad gashay noo oofi hadii oofin waysa haddaad oofin waysa safarka tobanaad u baxay weli qof qarax soo sheegto 100 lama arag ma taqaanaa maxaa hadli la adrin sababtoo hadli maxay tahay waxaan u hadlaynin waqtigii hadda nimankan la doortay waqti dhowaa waqti la hadlaa oo la dhaliilaa kama soo wareegin serious markaan u hadlayni waay haddii aad degdegsan tahay waa goonigeeda waa geeda xoogaa siyaasadaynaysa laakiin xaqiiqada dhabtaa waxaa weeye xilligii dawladdan la dhaliil lahay lama gaarin laakiin way imaani soomaaliya waxaa wax ka hadleeya degdeg aan degdega dhaafin nimankan ayagaa la rabaa ballamankaa aad sheegtay inay kasoo baxaan haddii kasoo bixi waayaan waa lagula xisaabtama ha-adii shalay dooratay aa kula xisaabtamaysa ma aha shacabka ha-adii dooratay aa kula xisaabtamaysa nimankan haddii safarkooda bato waxaan leenahay maxaad ka keenteen inta soo dhiga wixii laga keenay safar bilaa macnaa in waqti uu ku lumo waxaa weeye waa mas-uuliyad xumay noqonay waxaasoo dhan waa ogsoonna laakiin shacabka soomaaliyeed waxa aan leeyahay waxaa weye idinka iyo baarlamaankeena yaan liskii horkeena dalkeena waa dawladeena waa dawlad baarlamaani ah markii aad aragtid nolol iyo nabad iyo nolol waa sax ra-iisul wasaaraha wuxuu ka tirsan yahay xisbi liira nabad iyo nolol madaxweynaha wuxuu ka tirsan yahay xisbi liira tayo giddigoodna baarlamaankaa doorta baarlamaankana waxaa soo doortay shacabka iyo baarlamaanka dhexdooda siyaasi inuu isku cariiriyo damco asaa baxaya baarlamaanka ma baxay taasaan ku waayahay waxaan aadaynaa jubbaland tacdiye baahsana ka socda madaxweyne aan la dooran ayaa madaxweyne ka ah xaq loo hadlo madaxweynihii wuxuu gaaray in xildhibaanada kii mucaarado uu soo masaafuriyo weliba xilka laga qaaday marka laga hadlayo degaan inkastoo Hirshabeelle kasoo jeeda haddana dhinaca kalena waa mashaa dadka jubbooyinka degan waad matashaa arrintan maxay kula tahay arrinta axmedoobe maxay kula tahay arrinta axmedoobe anigu waxaan ka hadli karaa wax sharci ah ayaan ka hadli karaa wax kayru sharci kama hadli karo mar haddaan ahay qof xildhibaan waxaan jeclahay inaan ka hadlo waxa sharciga waafaqsan axmedoobe iyo maamulka jubbaland runtii waad ogtihiin baarlamaankii 9aad baarlamaankaas waa u kala diray wuxuu yiri baarlamaan noocaas loo dhisay ummadda soomaaliya isku dilayso asaan dhistay asagaa caleym saartay asagaa shamaystay dadka shacabka ah wax shaqo ah ay ku leeyihiin hadduu shashan u dubto hadduu labalaba u ceyriyo anagu baarlamaan oo sharci ah ayaan ka hadlaynaa
oo odayaashii dhaqanka ay soo duurteen oo ay muxuu ahaay qaabkii hadda ay ku yimaadeen puntland ay ku timid oo ay ku timid galmudug ku timid oo hiirshabelle ay ku timid oo koonfur galbeed ay ku timid ku yimaada ayaan anaga ka hadlaynaa baarlamaan koox gaar ah oo iyada soo jabhadaysada ay qabsatay ma ka hadlay marka mataangiyada Kenya lagu haysanayaa magaalada Kiida oo raali ka tirin goorteeda la gaaraa goormee la gaaray waxaan rabaa madaxweynaha hadda jooga iyo xukuumaddiisa inay sharciga waafajiyaan inteed ku aragtay adiga ma baarlamaanka laga rabaa adiga xageed ku aragtay wasiir xildhibaan la ceyrina xageed ku aragtay ma waxyaabaha yaab kale kamid oo maanta adduunka laga arkay adiga xageed ku aragtay ma hadli kartid nin dhan qof dhan oo dad matala oo la leeyahay ma hadli kartid la leeyahay xageed ku aragtay adeer waxaan ka hadlaynaa wixii sharciga waafaqsan oo sharcigana u hoggaansamayaan ka hadlaynaa qardajeex iyo jabhad kama hadlayno marka go-aanka ma wuxuu u yaalaa in arrinta wax laga qabto waa tii aad ogeyd oo xilli inta baarlamaanka la tegay la laalay Jubbaland la laalay halaska haysto intii jilib iyo dhulkan laga xoreynayo meeshaas maamulkeeda ugu dambeeya markii shabaabkan la laalo meesha waa la wada tagaa dee goormay noqonaysaa waa la wada tagaa goortii noqotoba degdega dhaaf maalinteeda la wada sugo haddii ay wax saxaanna hadda intay groupka meesha haysta jabhadda xoog ku qabsatay intay haysato haday wax saxaanna wel waa wax wanaagsan laakiin dad baa la dilaya dad baa la jirdilaya dhibaa ka socota addi marka waxaasoo dhan goorma soo karaya dadka waa carradaas oo kale ma dhammaanayeen dadkan dhulkaas ay ka dhasheen ma dhammaanayaan wax la dili kara iyo wax la barakacin kara male haddii la barakacin karo mar hore aad lasku kala kici lahaa haddii lasku dayaxaad haddadan tana aniga anoo halkan kula joogo ayaa liisoo wacay gabdho uur loo la kufsadayo jabhadaas ay kufsatay xamar hala geeyaan xamar markaan imaada aan la xiriirayna hay'adaha ku shaqada leh iyo human right iyo wixii kule ee ku shaqo leh ninkii sharci darro sameynaayo oo ciidankiisa sharci darro sameynaayo oo gabood sameynaayo ayagaa loogu yeeri doonaa heeg iyo caalamka laga ashkatayn doonaa faraaka qaad haddii xataa waa ogtahay wasiirkii gaashaandhigga xilligii muxuu ahay baarlamaankii sagaalaad iyo dowladdii xasan sheekh wasiir gaashaandhigga faqiya lagu xiray oo kuteenar lagu xiray waxaasan anaga aan dowlad dhihi karnaa marka annaga ma necbin dadka meesha joogo hadda mas-uuliyiinta ma necbin laakiin sharciga ha u hogaansamaana xataa qaab sharci dastuurkooda iyaga ay samaystaa xataa kaasba allah ka dhiga ha ku dhaqmaan xageed ku aragtay adiga aqliga waa xildhibaankii labaad oo muxuu ahay shaqada laga ceyriyay intee lagu ark xildhibaanka afkiisa waxaa ka baxayaa badbaado u ah ummadiisa iyo dadkiisa waa in la dhegaystaa markuu dadkiisa dadka uu matala dhibkiisa uu ka hadlayo waa in la dhegaystaa maxaa ka jira la yihahdaa lala kulma la yihahdaa maxaad aragtay maxaa ka hadashii laakiin fogof anaga wax iga sheegay soco ha socdo kala jabhadnimada unbaa cadaynaysaa mo waa yahay Ethiopia safir soo magacawday ila Kamaluddin oo Soomaaliya oo Soomaalida kilka ah ay safirkii Soomaaliya Ethiopia u fadhiyo Soomaaliya soo magacawday madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ninka Soomaaliga ayuu mataqaana ka qaabilay warqadaha aqoonsiga taasoo macnaheedu ma aha in maanta dowladda Soomaaliya ee federaalka ah ay aqoonsatay in dhulkii kilka Ethiopia tahay dadkaas dad Ethiopian ay yihiin saas ma sharciga uu qabay Soomaaliya adiga maanta nationality-gaaga Netherland waa hadda Soomaaliya waa way hadday dowladda Netherland ku soo magacaabato safiirka u fadhiyo Soomaaliya waa lagu qaabilay ma jinsiga iyo midabka laakiin waxay kala duwan tahay dhul ayaa la isku hayaa iyo dad Soomaaliya Ethiopia dhul dad isku hayaa laakiin Netherland iyo Soomaaliya dhul dad isku hayaa fiiri responsibility iyo mas'uuliyadda jinsi iyo qabiil ku maxir iyo shakhsi dhulkaasi waa dhulka waa laga wada hadli karaa laakiin qofka dowladda Ethiopia ay u soo magacaabayso inuu Oromo ahaado inuu asalkiisa Soomaali ahaado inuu Tigray ahaado inuu Axmaar ahaado isnsenso way adii maxaad ka aaminsantahay kilka sharaad ee Soomaalida maxaad ka aaminsantahay qadiida dhulkaas maxaad ka aaminsantahay ma dhul Ethiopia inuu yahay dhul Soomaaliyeed inuu yahay xilligan hadda la joogo qaabka hadda aan nahay dalkeena uu u yeelo
waxaa weeye arrimahaas arriman u baahan in si siyaasadeed loo xaliyo waay ee ma aha in la yiraahdo maya ma aqoonsani waa aqoonsanahay taag in hadalkaas dalkaas maanta tabaalaysan ee aan deriska nahay iyo annaga inuu naga dhex dhaco diyaar umanin Ethiopia deris wanaag iyo wada shaqayn wanaagsan ayaa naga dhaxaysa taa kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa xildhibaan Soomaaliyeed tahay u dhaartay qarnimada Soomaaliya u dhaartay midnimada Soomaaliya u dhaartay calanka halka ku dhigan waa calanka shanta gees lahaa oo kala metelay shanta mataqaana Soomaaliyeed dadka jijigay iyo diridhabe ku nool iyo dhulkaasi dhul Soomaaliyeed mid aqoonsan tahay mise dhul Ethiopia oo aqoonsan mas'uuliyadda aan haya waxaan ku hayaa mid dastuuri ma garad dastuurka wuxuu ka qabo ayaan ka qabaa waayahay su-aasha dabashada ku diyaar waxa weeye xisbiyaal furaya xisbi furnaysa afuraya waan kuugu martiqaadaya wali nin dhibata waayahay amiijesow xildhibaanka ayuu ahaa oo aan caawanka ku wada afurnay oo magaalada Bareeda ee dalka Holland booqasho ku joogo waxaan leeyahay ku soo dhaw markaa Holland basi wanaagsan